waddooyinka Minneapolis waa ay aamusan yihiin oo waa ay maran yihiin, laakiin taasi waxba kama quseeyaan cimilada barafka leh ee xilliga qaboobaha. Xitaa gudaha xaruntan laga dukaamaysto, macaamiisha meelna laguma arkayo. Dhawaanahan, milkiilayaasha ganacsiyada halkan ayaa sheegay in joogitaanka ee magaalada ay ka eryeen macaamiishoodii. Shaqaale badan ma rabaan inay shaqada yimaadaan. Qaar ka mid ah ganacsatada xitaa iskuma dhibaan inay furaan dukaamadooda sababtoo ah ma filayaan wax macaamiil ah. Dadkii horey u heli jiray 15 ilaa 20 macaamiil ah saacadiiba waxay leeyihiin hadda waxay nasiib u leeyihiin inay helaan hal qof oo keliya. Kuwa kale waxay ku dhibtoonayaan bixinta kirada iyagoo ku qasban inay lacag isku geeyaan. Muhaajiriinta iyo sidoo kale muwaadiniinta Maraykanka ee laga tirada badan yahay ayaa ka baqaya inay la kulmaan masiir la mid ah boqolaal kale oo ay xireen saraakiisha socdaalka bilihii la soo dhaafay. Foogashadii dhimashada lahayd ee Rene Good uu u geystay wakiil ka tirsan iga horaantii bishii Janaayo ayaa sii kordhisay xiisadda iyo cabsida dadka dhexdiisa ah.